السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hoyga dhiirane English Learning Funds qaybtiisa YouTube-ka. Waa anigu Cabdisaam Muuse Axmed Cabdisaar dhiirane. Haddaba Ingiriisi ku baro si fudud adoo nagala soconaya barnaamijyadan soo dhigna daily barteena aan ku leenahay YouTube-ka kaas oo ka mid ah kelmado wada sheekaysi mowduucyo iyo kelmado jumlad ah iyo Ingiriisiga aan u soo gelin si daily ah. haddaba subscribe noo saar haddaad ku cusubtahay channelkan haddaad hore u subscribe u saartay qalbiga kaa ogsooni mahadsanid. maanta waxaynu bilaaban doonaa topic about teachers hore waxaynu usoo qaadanay topic about troops mowduuc ku saabsanaa ciidamada. marka insha Allah sidoo kale maanta waxaynu qaadan doonaa mowduuc ku saabsan teachers macallimiinta. topic about teachers topic ku saabsan mowduuc ku saabsan macallimiinta. waa bilaabay waxaanu yidhi it's very glad to me aad bay farxad weyn igu tahay. it's very glad to me farxad weyn bay ii tahay. it's very glad to me farxad weyn bay ii tahay. glad waa farxad, happy bay la mid. it's very glad to me farxad weyn bay ii tahay to express inaan sheego ama aan sharxo my feelings dareenkayga about ku saabsan my feelings dareenkayga about ku saabsan this vital topic mowduucan aadka u muhiimka. this vital topic vital waa important bay la mid tahay. this vital topic mowduucan aadka u muhiimka yacni wuxuu ku leeyahay aniga farxad weyn bay ii tahay inaan ka hadlo mowduucan ku saabsan macallimiinta. oo macallimiinta wuxuu ku leeyahay dee heer saray kaalinteeda nololeed amba magarasa horumar ay ka soo qaateen. marka aad baan ugu faraxsanahay dareenkayguna muhiim buu u yahay inuu ka hadlo magarasa topican ayuu leeyahay. wuxuu leeyahay it's very glad to me farxad weyn bay ii tahay. it's very glad to me farxad weyn bay ii tahay. it's very glad to me farxad weyn bay ii tahay to express inaan sharxo inaan sheego ama aan sharxo my feelings dareenkayga about ku saabsan this vital topic mowduucan aadka u muhiimka. this vital topic mowduucan muhiimka towards ee ku wajahan teachers macallimiinta towards ku wajahan teachers macallimiinta towards ku wajahan teachers macallimiinta. marka wuxuu leeyahay aad bay muhiim igu tahay inaan sheego dareenkayga ku saabsan mowduucan aadka u muhiimka ee ku wajahan macallimiinta. way as we know sidaynu ognahay the teachers macallimiintu are most honorable waa kuwa ugu sharafta badan waa kuwa ugu sumcada badan waa kuwa ugu sareeya. as we know sidaynu ognahay the teachers macallimiintu are most honorable waa kuwa ugu sharafta badan waa kuwa ugu sharafta badan in the people marka la dhex joogo dadka one according marka laga eegayo every individual shakhsi kaste who made kaasoo sameeyey considerable development horumar aan la malaysan karin. considerable aan macquul ahayn amba magarasa horumar aan la malaysan karin oo dee horumar great sameeyey ayuu macallinku ku leeyahay magarasa iisoo xaso sharaf amba magarasa macallinkaasi uu soo tababaray qofkaas sameeyey horumarka badan. wuxuu leeyahay as we know sidaynu ognahay the teachers macallimiintu are most honorable waa kuwa ugu sharafta badan in the people dadka dhexdooda. one according marka laga eegayo marka dadka laga soo tago xataa laga sii eegayo dadka one according marka laga eegayo every individual ala shakhsi kaste who kaasoo made sameeyey considerable development horumar la taaban karo
considerable development horumar la taaban karo at many aspect dhinacyo badan at many aspect dhinacyo badan aspect waa dhinacyo at many aspect dhinacyo badan at many aspect dhinacyo badan in the life nolosha nacam wuxuu ku leeyahay macallinku wuxuu horumar badan uu qofka wuxuu gaarsiiyey horumar badan wuxuu gaarsiiyey qofka sameeyey maanta amba qofka maanta sameeyey horumar badan sameeyey amba wax badan noloshiisa ka qabsaday ogsoonow macallin ayaa raad ku lahaa oo macallin ayaa magaranaysa qofka u suurto geliyey markii ilaahay laga yimaado marka macallin ayaa saameyn ku lahaa qofka qof walba oo maanta guuleystay macallin ayaa ka dambeeya ku leeyahay every individual على شخص كسته every individual على شخص كسته هو كاسو ميد سمي considerable development horumar aan معقول هاي amba horumar xad dhaafa at many expert dhinacyo badan in the life noloshiisa qofka dhinacyo badan noloshiisa horumar ka sameeyay ogsoono buu ku leeyahay waxa uu sabab ah macallin wuxuu ku leeyahay as our prophet sidii rasuulkeenu as our prophet sidii rasuulkeenu BCB about him nabadgelyo naxariis kulkiisa ha ahaatee as our prophet sidii rasuulkeenu as our prophet sidii rasuulkeenu BCB about him naxariis iyo nabadgelyo kulkiisa ha ahaatee be about him naxariis kulkiisa ha ahaatee told us uu noo sheegay that teachers macallimiintu teacher macallinku approach wuxuu ku dhawaaday to become inuu noqdo messenger rasuul macallin wuxuu leeyahay sida nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay macallinku wuxuu ku dhawaaday inuu noqdo rasuul macallin sidoo dadku wax u baray sidoo dadku wax u fahansiinay sidoo dadka noloshooda dambe uga qayb qaadanaya inay sameeyaan magaranaysa waxa wanaagsan ugana tagaan wixii xun ayuu macallinku magaranaysa saameyn badan uu magaranaysa uu ku yeeshay qof walba maanta horumar sameeyay marka sidoo rasuulkeenu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam as our prophet peace be upon him naxariis iyo nabadgelyo kulkiisa ha ahaatee told us uu noo sheegay that teacher macallinku approach wuxuu ku dhawaaday to become inuu noqdo messenger rasuul way soo sidaa daraadeed we can waxaan ka ogaan karnaa deer halkaas soo sidaa daraadeed we can deer halkaa waxaan ka ogaan karnaa halkaas waa halkee nacam hadalka uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay waxaan ku ogaan karnaa the value qiimaha sit on the teachers ay macallimiintu ku fadhiyaan maadaama uu macallinku ku dhawaaday inuu noqdo rasuul waxaynu halkaa ka ogaan karnaa kule soo sidaa daraadeed we can deer halkan waxaynu ka ogaan karnaa soo sidaa daraadeed we can deer halkan waxaynu ka ogaan karnaa the value qiimaha sit on the teachers ay macallimiintu ku fadhiyaan macallin qiimaha iyo qaayaha iyo ixtiraamka iyo magaranaysa muhiimadda ay macallimiintu ay ku fadhiyaan way teachers macallimiintu are people waa dadka who kuwaasoo provide siiya an education waxbarashada for children carruurta nacam wuxuu ku leeyahay teachers macallimiintu are people waa dad who kuwaasoo provide siiya ama bara education aqoon amba aqoon bara for children carruurta education aqoon bara amba waxbarasho bara for children carruurta and pupils iyo ardaydaba pupils waa ardayda la yiraahdaa amba magaranaysa studentiga saad u taqaantaan for children carruurta ay barayaan and waxaanay sidoo kale ay barayaan pupils ardayda way the main aim ujeedada ugu weyn of teachers ee macallimiintu the main aim ujeedada ugu weyn of teachers macallimiintu is to cultivate waa inay qodaan cultivate waa qoditaan the main aim ujeedada ugu weyn of teachers macallimiintu is to waxa weeyaan
cultivate inay qodaan students mind maskaxda ardayga yani sidee qodayaan intay qodaan bay magaranaysa cilmi ku shubayaan buu leeyahay the main aim ujeedada weyn of teachers macallimiintu is to cultivate wayna qodaan students mind maskaxda ardayga students mind maskaxda ardayda students mind maskaxda ardayda and produce say usoo saaraan high quality educated student arday aqoon sare oo tayo leh inay soo saaraan ujeedada ay magaranaysa u qodayaan maskaxdooda nacam qoritaankan hamoodin qoritaankii magaranaysa caadiga yani waxa lagu leeyahay cilmi baa la barayaa isla markaana cilmi baa magaranaysa lagu ababinaya ardayga and produce u noqdo amba ay u soo saarmaan high quality educated student arday aqoon sare leh isla markaana tayo leh oo aqoon yahana si u soo baxaan way teachers macallimiintu participate waxay ka qayb qaataan qayb qaadasho weyn to get in la helo existing government dawlad magaranaysa jirta to get in la helo existing government dawlad jirta and people iyo dad magaranaysa jira in badan oo macallimiintu ay bataan waa in badan oo magaranaysa dawlad ay jiri karto isla markaana dad ay jiri karaan nacam without education without magaranaysa life weyn aqoon la'aan waa waxbarasho la'aan amba magaranaysa aqoon la'aan waa waxbarasho la'aan amba nolol la'aan weyn oo waxa lagu leeyahay teachers participate macallimiintu waxay ka qayb qaataan to get in la helo existing government dawlad jirta and people iyo dad who kuwaasoo kaniisadii baaqi uga dhigi kara kaniisadii baaqi uga dhigi kara residue waa hadhaa kuwaasoo kaniisadii hadhaa uga dhigi kara their knowledge cilmigooga to young generation dhalinyarta yaryar yani wuxuu kuleeyahay macallimiintu waxay ka qayb qaataan inay dawlad jirto sidoo kalena ay dad jiraan dadkaasoo amba dawladdaasoo uga tegi kara cilmigooga magaranaysa to young generation dhalinyarta soo koraysa jiilka soo koraya dhalinyarta soo koraysa haddaba aan kusii celiyo teachers macallimiintu participate waxay ka qayb qaataan to get in la helo existing government dawlad jirta and people iyo dad kaasoo kaniisadii baaqi u noqon kara their knowledge cilmigooga baaqi u noqon kara to young generation dhalinyarta yaryar amba dhalinyarta soo koraysa way teachers macallimiintu prepared waxay diyaariyaan their lesson casharkooga teachers macallimiintu prepared waxay diyaariyaan their lesson casharkooga before not entering the period kahor intaanay gelin xiisada teachers macallimiintu prepared waxay sii diyaarsadaan their lesson casharkooga before not entering the period kahor intaanay gelin xiisada teachers macallimiintu are only industry waa warshada keliyaate that student taasoo ardaydu can receive ay ka heli karaan ay ka heli karaan different knowledge cilmiyo kala duwan yani ardaygu waa meesha keliyaate uu ka heli karo cilmi waa macalinkiisa haddaba hadday waa ardaydii haddii iyagu show ay u muujiyaan more respect qadarin badan yani macalinka ay u muujiyaan show more respect hadday qadarin badan u muujiyaan iyagu much polite akhlaaq badan ay u muujiyaan amba ay tusaan macalinka when they stay in the class markay joogaan galaaska dhexdiisa waa joogid when they stay in the class markay joogaan galaaska dhexdiisa ay dareensiiyaan lana dareensiyo amba ay dareensiiyaan the teacher macalinka with his value qiimihiisa I am sure waxaan hubaa
we will get first score in the life. We will get first score in the life. waxa ku leeyahay macalinka haddii ardaydu macalinka ay tusaan qadarin badan ixtiraam badan sidoo kale ay dareensiyaan qiimihiisa waxaan waa boqolkiiba boqol buu ku leeyahay inaynu ka geli doono kaalmaha ugu sareeya nolosha amba nolosha aynu heer ka gaari doono waayo we will get first score in the life inaynu horumar nolosha aynu ka gaari doono amba horumar nolosha aynu sameyn doono taas ay ugu wacan tahay to his blessing ducadiisa markuu democrats aynu qadarin badan tusanin ducin inoo duceeyay taas ay ugu wacan tahay to his blessing ducadiisa which taas we work from him taas oo isaga ka shaqaysanay taas we work from him taas aynu isaga ka shaqaysanay haddaba teachers macallimiintu are our second parent waa waalidkeena labaad are our second parent waa waalidkeena labaad are our second parent waa waalidkeena labaad parent waa waalid therefore sidaa daraadeed I would like waxaan jeclaan lahaa to give inaan siiyo advice talo myself naftayda and yourself nafihiinaba waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo talo I would like waxaan jeclaan lahaa to give inaan siiyo advice talo myself naftayda and yourself nafihiinaba and everyone iyo qof kasta who has teacher kuwaasoo macalin leh should keep waa inuu ilaaliyaa his teacher macalinkiisa should keep waa inuu ilaaliyaa his teacher macalinkiisa as they can siday u awoodaan yani wuxuu leeyahay macalinka wayna qadarintiisa la siiyaa sidoo kale aan waxaan jeclaan lahaa inaan talo siiyo naftayda iyo nafihiinaba wuxuu leeyahay I would like waxaan jeclaan lahaa to give inaan siiyo advice talo myself naftayda and yourself iyo nafihiinaba and iyo everyone iyo qof kasta who has teacher kaasoo macalin leh should keep waa inuu ilaaliyaa his teacher macalinkiisa as they can siday u awoodaan waayahay haddaba maanta intaasaynu ku joogi doontaa insha allah subscribe hanaga iloobina saynu gaarno 1k aad iyo aad baad u mahadsantihiin casharkan ku xiga waynu isku kulmi doonaa waynoo iyo casharka ku xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu